بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن داوديال meel kasoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo channelka Daljir muddo ayaan kala maqnayn barnaamijyadeena tooska ama tabin tooska ahayd ku kala maqnayn sababo ama cilado farsamo awgood marsi hadda iyo wixii ka dambeeya dib ayaan u bilaabi doonaa tabinadii tooska ahaa ama muuqaaladii tooska ahaa inaan soo tabin jirnay kuwa aanu ku falanqeyn jirnay arrimaha siyaasadda ee dalka Soomaaliya iyo guud ahaanba geeska Afrika iyo sidoo kale xaaladaha nololeed iyo waliba kuwa dhaqan dhaqaale ee dalka Turkiga la xiriira wali barnaamijyada halkooda ayaanu ka sii wada doonaa haddii Allaha awoodda dhihi karaado maanta tabintan tooska waxaanu ku falanqeyn doonaa saddex qodob oo markaasi kala ah musharaxnimada madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo maanta wasiirka qorsheynta ee dalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan uu si adag uga hadlay iyo sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland oo 8 kamid ah ururka Al-Shabaab maanta dil toogasho ku xukuntay iyo sidoo kale guddiga cusub ee doorashooyinka dalka Soomaaliya oo gudoomiyaha diwaan la doortay saaxiibkeen Maxamed Xasan Ciro iyo xubno kamid ah guddiga oo maanta la kulmay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ahna musharax madaxweyne Xasan Cali Khayre taas oo markaasi walaac badan markaasi dhalisay ismarkaasina ay walaac ka muujiyeen qaar kamid ah musharaxiinta dalka Soomaaliya aan ku bilaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo muddooyinka ugu dambeeyay ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya isagoo olole doorasho ama campaign halkaasi ka wada ayaa waxa soo shaac baxday maanta si rasmi ah inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha dalka Soomaaliya ha ahaado musharax oo musharaxiinta kale kaga duwana bal su'aasha isweydiinta mudan oo markaasi walaacan uu ka muujiyay wasiir Jamaal Maxamed Xasan ayaa waxa ay tahay hamar haddii musharax yahay sababta ku ama keenaysa in uu dib u dhigo soo xulista guddiga doorashooyinka Puntland soo xulista oo dhaqameedka soo xulaya xildhibaanada iyo sidoo kale ku dhawaaqista musharaxnimadiisa haddaba arrintaas ayaa waxa la sheegay inuu ujeedooyin dhowr ka leeyahay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kow in uu isaga guddi soo xula xildhibaanada uu doonayo hadhow uu magacaawdo siifa markaasi sababtoo ah waxaad ogtihiin hadda waxa galaangal siyaasadeed oo xoog leh ku leh soo xulista guddiga iyo magacaabistaba waa madaxweynaha maamul goboleedyada marka waxa uu doonayaa inuu soo xusho guddi isaga markaasi hadhow la shaqeyn doona oo danihiisa gaarka ka shaqeyn doona xildhibaanada isaga u codeyn doonana hadhow soo xuli doona labo in nidaamka doorashooyinka uu markaas wax ka ogaado maadaama hadda uu yahay xubin firfircoon oo kamid ah maamul goboleedyada sidoo kalena uu miiska wada hadalka markaasi fadhiyo haddii markaas uu iska casilo xilka madaxweynenimada dowlad goboleedka Puntland oo uu ku dhawaaqa musharaxnimadiisa dabcan taas waxay meesha ka saareysaa inuu guddiga iyo shirarka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka uu galaangal ku yeesho ama uu ka qayb qaato taas darka awgeed waxa uu la mid noqonayaa musharaxiinta kale ee tartamay Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh iyo Xasan Cali Khayre iyo Cabdiraxmaan Cali Shakuur wuxuu la mid noqon doonaa musharaxiintaas sifa marka uu galaangal u yeesho waxa uu dib u dhigay musharaxnimadiisii waxaana sidoo kale doonaya inuu galaangal ku yeesho uu soo xulo xubno kamid ah guddiga oo isaga hadhow u codeyn doona arrintaas waxaa walaac weyn ka muujiyay wasiirka qorsheynta dalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan horena uu ahaan jiray safiirka Soomaaliya ee magaalada Nairobi dabcan sida uu sheegay waxa uu sheegay in hadda wixii ka dambeeysan afka ka qabsan doonin inaysan sidoo kale u dul qaadan doonin aamusnaanshada iyo sidoo kale faragelinta uu markaasi madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu wado madaxweyne Dani waxa uu ku sugan yahay magaalada Nairobi dalka Kenya waxa uu shirar gaar ah la leeyahay ururada bulshada iyo sidoo kale ganacsatada Soomaaliyeed iyo sidoo kale qaar kamid ah beesha caalamka oo dabcan uu ka raadinayo taageero dhaqaale iyo sidoo kale mid fikir sida ogtihiin musharaxiinta Soomaaliya u taagan ama dadka madaxweynenimada Soomaaliya isu sharaxa waxa intooda badan dabada ka soo riixa oo taageera oo wadamo shisheeye waxa dhaqaale ku bixiya waa dad dana gaar kale ama hay'ado ha ahaadaan ama dalaha ahaadaan dana gaar kale siyaasadda Soomaaliya madaxweyne Dani waxa uu shirar gaar kula leeyahay magaalada Nairobi siyaasiyiin iyo sidoo kale wadamo beesha caalamka ama xubno beesha caalamka ka socda waxa uu dabcan raadsanaya dhaqaalihii uu campaignka doorashada ama ololaha doorashada ku gali lahaa sidoo kalena waxaa jira warar hoose uu sheegaya inuu shirar markaasi xog badan aan laga haynin oo markaasi aad muhiim u ah uu la leeyahay qaar kamid ah wadamada deriska ah weli ilaa hadda warkaasi si rasmi u soo shaabixin marka ugu horeysan kala cadeynada idin soo gudbin doonaa anta kaga imaan qodobkaasi qodobka xiga maxkamadda ciidamada qalabka sida ee markaasi Puntland ayaa waxa ay ku xukuntay 8 sano oo loo haysto ururka Al-Shabaab dil toogasho ah Puntland waxay ogtihiin hore waxay u xukuntay 18 kamid ah ururka Al-Shabaab magaalada Galkacyo lagu toogtay iyo 3 lagu toogtay magaalooyin kale ee Puntland laba garow lagu toogtay iyo mid qarar lagu toogtay
sida ogtihiin ba kula tankaasi al-shabaabka ay la toogtay waa tirada ugu badnayd al-shabaab laga toogto oo ismarkaasina gudaha Soomaaliya lagu toogto hal maalin gudaheed. maxkamadan sideedan ay xukuntay dabcan baaritaan ayay ku sameysay maxkamado darajooyin kala duwan ayay soo martay dabcan waxa u dhiman darajooyin kale maxkamadda racfaanka iyo sidoo kale maxkamadda sare ee dalkaas ayaa u dhiman weli markaas xukunkani ma ahan kii ugu dambeeyay laakiin waxaa moodaa la dagaalanka ururka al-shabaab Puntland inuu soo tariyo muddooyinka ugu dambeeyay in awoodihii ururka al-shabaab deegaanada Puntland la weeqayo oo ay hoos u dhacayaan oo dabcan wax lagu farxo ismarkaasina la soo dhaweeyo. waxay u tihiin mas'uuliyiin kala duwan iyo markaasi dad bulshada magac ku dhex lahaa una shaqeynaya arrimaha bulshada oo wariyaal ay ka mid yihiin oo ugu dambeeyay wariyihii Galkacyo lagu dilay ee ururka al-shabaab ay ku dilay magaalada Galkacyo iyo guud ahaanba deegaanada Puntland. dabcan marka xukunkan waxa uu markaasi qayb ka noqonayaa dardalgelinta la dagaalanka ururka al-shabaab ee ka socda deegaanada Puntland. waxa ay laamaha ammaanka Puntland wacad ku marin ay ka cirib tiri doonaan al-shabaab deegaanada Puntland guud ahaanba. dana waxa ay markaasi qayb ka tahay la dagaalanka ama dagaalka ay ku jirto ama ay ku jiraan laamaha ammaanka ee Puntland markaasi ku jiraan ururka al-shabaab. waa tahay gudoomiyaha marka dhow uun la doortay guddiga doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Ciro iyo xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka ayaa waxa ay maanta xafiiskiisa ku booqdeen ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ismarkaasina ah musharax madaxweyne u taagan xilka madaxweynaha dalka Soomaaliya. xasan cali khayre waa ra-iisul wasaarihii madaxweyne farmaajo la soo shaqeeyay muddada dheer sidoo kalena hadda waxa uu ka mid yahay isbahaysiga mucaaradka ama midowga musharaxiinta oo inta badan dhaliila siyaasadda madaxweyne farmaajo ismarkaasina qodobo kala duwan dhaliilo fara badan usoo jeedinayay madaxweyne farmaajo iyo guddiyadii uu soo magacaabay ama guddiyadii dowladda ay soo magacaabay. sideed kadib waxaa lagu guuleystay in guddiyada meesha laga saaro guddi cusub la magacaabo guddoomiye cusubna ay doortaan. Maxamed Xasan Ciro waxa uu hore u ahaa guddoomiyihii hore ee markaasi guddiga madaxweyne farmaajo uu magacaabay markii meesha laga saaray wax ka bedel lagu sameeyay dib ayuu hadan u tartamay waxaana ku soo baxay isla Maxamed Xasan Ciro oo isagu ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee heer federaal waxaana maanta shir la qaatay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ama ra-iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre. arrintan waxa walaac ka muujiyay midowga musharaxiinta intooda kale waxa markaasi warar soo baxay sheegayaan in Xasan Cali Khayre oo si hoose ula shaqeynayo madaxtooyada Soomaaliya ama nabadii nolol wali uu si toos ah uga tirsan yahay oo ay xubin firfircoon oo active ah oo ka tirsan nabadii nolol. ilaa hadda wararkaasi dabcan waa warar isla dhex marayaan midowga musharaxiintooda kale hadda noqon lahayd Cabdiraan Cusooble Cabdiraan Cabdishakuur Muqaadir Cusooble aan iraahdo Cabdiraan Cabdishakuur iyo sidoo kale midowga musharaxiintooda kale Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo inta kale markaasi musharaxiinta. warkan waxa uu markaasi ama shirkan maanta ay wada yeesheen gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre dabcan waxa uu sidoo kale sida gudoomiyuhu uu sheegay uu yahay shirar hordhaca oo ay la kulmi doonaan dhammaan musharaxiinta ay dhageysan doonaan tabashooyinkooda iyo tala soo jeedintooda. waxa Maxamed Xasan Ciro sheegay inuu ahaa kulan wax ku ool ahaa talooyin wax ku ool ayuu sheegay inuu usoo jeeday ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya guddiga ismarkaasina ay ka dhageysteen talooyinkiisaasi. dabcan waxaa bisha tobnaad loo balansan yahay in Soomaaliya ka dhaco doorasho markaasi doorasho dadban ah. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya xilligan Maxamed Xuseen Roble waxa uu maanta magaalada Kismaayo kula kulmay madaxweynaha Jubbaland booqashooyin kala duwan ayuu ku tagay magaalada Kismaayo dekedda Kismaayo ayuu booqday qaybo kamid ah magaalada ayuu sidoo kale soo marmaray ilaa hadda kulankooda wax warar kama soo bixin xilligan idin la hadlayo wixii ku soo koro waa idin soo gudbin doonaa balse waxaad ogtihiin in guddi wasiiro ah oo ka kooban 4 maamul goboleed oo kale marka laga reebo Jubbaland loo magacaabay sida ay u xalin lahaayeen khilaafka ka taagan gobolka Gedo walow reer Gedo ama dadka deegaanka Gedo ay muran ka keeneen ama ay cabasho ka muujiyeen wasiirka amniga gudaha ee Puntland oo kamid ah guddiga loo magacaabay inuu khilaafka ka jira gobolka Gedo wax ka xaliyo. ilaa hadda dowladdu kama hadlin ilaa hadda sidoo kale maamulka Jubbaland kama soo hadlin waa ka warsugi doonayaan wixii ka soo baxa balse isku soo duuduubo shirarka qodobadaas ayaa wararka maanta ugu muhiimsanaa. qodobka ugu horeeya aan idin soo gudbiyay ee ahaa musharaxnimada madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani sidoo kale xukunka maxkamadda sideedda al-shabaab ay ku fulisay maxkamadda Puntland iyo booqashada maxaa la yiraahdaa guddiga doorashooyinka ay maanta booqdeen ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maanta booqasho ku yimid magaalada Kismaayo ee xarunta ku-meelgaarka ah maamulka Jubbaland. inta ayaan kusoo ameerayaa caawa barnaamijka mataminta tooska ahayd tan iyo intaan ku kulmi doono waxaan kaga tegay sida nabadgelyo nabaadir nolol kulanta iyo maana Allah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا هدي أن نقول عصبت هاي مقال كثير شير قرية جنال كيوتيوب كسبسكرايب نوصل بيج كان كلنا فيسبوك دلج الميديا فولو يلايك سقدر أدبا وما سنته.